واتهاي بالهالكاس aan dhahdo farsamada inoogu jooji Cabdixakiin oo aan u baydho dhankii dhalinyarada toddobaad kan su'aalaha aan dhalinyarada la wadaagnay toddobaad uu ka xiiso badan yahay toddobaadba marka dhalinyarada la kulantay toddobaadba waxaad arkaysaa wajiyo cusub ayaan dabcan barnaamijka ku soo casnaa oo aan markaas dhalinyarada intaanu qaadano oo xaafada Islii tagno waano iyo xaafadaha ay Nairobi ka koobantahay intaanu tagno ayaanu su'aal ku soo weydiinay waa tahay toddobaadkan daba su'aasha aan soo weydiinay dhalinyarada saddex su'aalood baan soo weydiinay qaar weynoo dambeeyay laakiin su'aasha ugu horeysay aan rabo inaan bal markaas idinka idin tuso waxay tahay ama dib baan idinka sharaxi doonaa barhorta intaan ka hor dhicin su'aasha aan dhalinyarada is weydiinay daawasho wanaagsan waxaan rabaa Salmaan waa fanaan hore ayuu aan TV-ga ugu caasuumay iyo barnaamijka iyo heesa bilaa muusigu inoogu heesayo dad badan ayaa dabcan la dhacay Salmaano horta marka hore soo dhawo iglan dhawo walaal markale waxaan ku leeyahay oo ka soo dhaweynay waan ku faraxsanahay inaan aragno maadaama aad defnaan kugu ma sheegayee bar horta maxaad inoogu furaysaa barnaamijka ni horta marka hore aad baan ku salaamayaa mar labaad iyo soo dhaweynta England show marka hees baan ku furaynaa waaba waxaan ku iri sidii la rabay hay wallow aynu dooqiyo damqashada ka simanahay qalbi ku darsadayba kallinima dareeme anna doonistaadii jirku way dubaxshayo nafta dabar ku xidhata ka jeclaatay dumarkee adigaan dugsiimiyo ka helay daryeelo qalbi dacado furan igu deeqayhuno aliya isag baan ku dhaaba u mahadsantahay waxaan kale u mahadcelinayaa dhalinyarada faraha badan ee markasta aan barnaamij duubayo dabcan aad ka igu soo aad u mahadsantahay maadaama hees jacayl aad inoogu furtay armaan su'aashan aan watay ka tagayo su'aal cusub inoo bilaabaa waa tay su'aasha maadaama hees macaan inoogu furtay waxaan rabaa qofkaad adduunyada ugu jeclaan lahayd maxaad hadiyad uga dhigi lahayd horta waxaan hadiyad uga dhigi lahaa dee sugan annagu sugan baan uga dhigi lahayn ma fahamta waayo hablaha wax kaloo lagu amaana ma jiraan maadaama aad adigu fanaantahay sugan baad uga dhigi lahayd waa sugan baan uga dhigi lahaa waayo ma jiraan wax hantida ugu qaalisan leena Soomaali waa sugan marka sugan baan uga dhigi lahayn ayaan kulli anigu uga dhigi lahaa way lacagtu iska dhamaataa waa tahay hadii aad sugan maadaama adigu fanaantahay oo gabadh kalis kugu soo baxdo oo ku tirado waan ku jecelahay heestee baad ula gaari lahayd wallahi kalis kugu qabatay ma wax laga fikiraya wallahi horta dee waxaan u qaadi lahaa heesii hore qaraamiga hawo ka waxaan lahaa nolosha qurbuhu quruxba malahe adbaan qalanjooy dalkii qabana nolosha qurbuhu quruxba malahe adbaan qalanjooy burco qabana helloy taas ay wargala aad u mahadsan tahay waad iiga jawaabtay si kaliisa waxay ku tiri waan ku jecelahay maxaad ku jecelahay taanoo ku jecelay wasku dhamaatay xaaskaagii hore ayaa ku daba taagan ay salaamiya ahaan gabadh baa kaas kugu waxay ku tiri waan ku jecelahay waa ku jecelahay ku timantahay gabadhaadii hore xaaskan way ku daba taagantahay iyana dabadaadii taagan tayada haddaan kala dhamaanay maxay rabtaa way iska tigisa ta cusub waa wixii cusub caalamka jecel waxbad cusubun xaaskaagii baan ku ri gabadhaad jeclaatay ayaa adoo xaas leh iyadoo kula socoto bay si kaliisa waxay ku too ku jecelay adoo xagga dambe eegaya iyadoo aanan qabin laakiin adoo qabo xaaskaagii baan ku ri dambe haddii la socoto maxaa rag afar baa loo baneeyay mogti waxa weeye hadalkayga si fiican u fahmin gabadh baad qabtaa baan ku ri oo xaas baad leedahay suuqa isku soo raacdeen gabadh kala jacayl iyo meelaha la soo istaagtay kadibna gabadhan ma ku garanayso gabadhan ma garanayso xaaskaagii tahay si ka su'aal Salmaan waan ku jecelahay iyana way ku daba taagantahay ay daba taagantay Soomaa ma waxaan oran lahaa waa iska jacaylka magaalada adoo ma santaa waxaan ku xijin doonaa
walaalkii soo dhawo adigii guur Salmaan iga horreysay su'aashan hore u galeynaa هيد su'aasha dabcan wad la socotaa qof adduunka aad u jeceshay maxaad hadiyad uga dhigi lahayd والله دي أنا كل ما هيصو لكن دي قلبي يقعد نف أنا قد يقول هدية دي نفتي دون qalbigan hee ساس دي ساي تعيش سلمي دون ما تعال هدية قد يقول maya hadiyad jacaylkeeda iyadu waa dhinac kale moogtahay su'aashu waxay tahay haddii qof adduunka aad u jeceshay maxaad hadiyad uga dhigi lahayd قبل كلا أنا قرصلا تسنى هدية قد يقول قبل كلا أنا قرصلا تسنى هدية قد يقول waa tahay aad waa mahadsan tahay haddii adigoo xaas leh oo ay gabadhi kaa hor timaado oo aan gabadha nooqadhay ku tira waan ku jeclay si kadiisa gabadhaadina waad kula socota abtaay tamaan khayra saas wallahi horta waa talo kugu cadaad laakiin waxaan sameyn lahaa waxaan qoran lahaa unde waan ku jeclaana inkastoo talo kugu cadaatay tan waxaad ku qanciso ma jirto ma garanaysa already laakiin tan haddii aydan ka gaxaas hore ahaan jirtay abti tamaan soo dhaweynaya jacaylka cusub soo dhaweeyay